Turkiga iyo Malaysia ayaa samaystay qorshe loogu magac daray wadaagga tiknoolajiyadda Turkiga iyo Malaysia, gaar ahaan taangiyada dagaalka ee casriga ah. Shirkadda FNSS ee dalka Turkiga oo samaysa agabka dagaalka ayaa waxay heshiis la gaartay shirkadda FRB ee dalka Malaysia. Labadan shirkadood ayaa waxa ay gaareen heshiis ku saabsan horumarinta taangiyada casriga ah ee ku shaqeeya tiknoolajiyadii ugu dambeysay ee caalamku isticmaalo. Shirkadahan ayaa gacanta ku haya sameynta taangiyo dagaal oo casri ah oo la jaan qaadi kara cimilada dalka Malaysia. Sidoo kale, shirkadda samaysa taangiyada ee dalka Turkiga ayaa horumarin dheeraad ah ku samaysay taangiga Al Fahad ee dalka Turkiga. Dhinaca kale, shirkadaha sameeya agabka dagaalka ee Turkiga gaar ahaan FNS iyo BARS ayaa horumarin weyn ka wada taliska taangiyada dalka Malaysia ee Kamuluddin. Dowladda Turkiga ayaa gacanta ku haysa horumarinta agabyada dagaalka ee dalalka Malaysia, Pakistan iyo Indonesia, iyadoo u soo saarta noocyada kala duwan ee agabka dagaalka.